بسم الله الرحمن الرحيم. maanta waxaan joognaa meesha la dhahayo Siigaale ee masaajidkii online waagi hore lagu duka jiray oo hadeertaan biyo iyo burbur aad u badan oo ka muuqdo. waxaana dad islaam ah waxa loo baahan yahay muuqaalkan hadda u jeedid oo saan u fooshaxun waa masaajidkii online oo ku yaalay xaafadda Siigaale. waxa loo baahan yahay masaajidkan in dib u dhis baan lagu sameeyo sida masaajidda loo qurxiyo kale. masaajidka waxa iska leh dadka islaamka ilaahan iska leh laakiin guri ilaahay waaye. waxa loo baahan yahay dadka ardada ku nool inay dayactiraan hadoo jajabo hadoo haleysan yahay inay dhistaan masaajidka baytullah waaye. ilaahay koonkan wuxuu noo keenay inaan macnaha masjidkan iyo wixii la mid ah inaan wax ku aqoano. marka hadda ummad islaam aan nahay masaajidkan saan u burbursan yahay meelo xun lacagta waa ku bixinaa khayr ayaa ku jira meeshan. dadka aqliga u saaxiib ah waxaan u sheegayaa in masaajidkan il gaar ay ku soo fiiriyaan si aad u burbursan yahay. waxa ku wareegsan waa buushash iyo waqti meelal aad u haleysan oo ku dhex yaala. halkaas kalena waa warti asiga darsay yihiin biyo ayaa soo galo. masaajidkan waxa loo baahan yahay in lagu wada goobto tugada idoo leeyahay wax loo qabto. waxa waaye sidoo jaari waaye ninkii wax ku darsado masjidkan isku imaado wax ku darsado adduunyo aakhir wuxuu ka helayaa ajir aad iyo aad u weyn. walaalayaal khayrka aan u shaqeyno ana ka shaqeysano dunida safar baan ku nahay. waxa loo baahan yahay masjidka inaan dhisno. masjidkan ha lagu dadaalo hal iskugu tago walaalayaal. masjidkan hal soo fiirsho. masjidkan meel kasta loo galo dhul dheer dhul gaaban loo karo geed dheer iyo geed kaan wax loo karo. waxa loo baahan yahay masjidkan si qurux badan in loo dhiso. masjidkan arada anako ilaahay nagu uumay asigana ilaahay iska leh anakana waxaan loogu talagalay inaan ilaahay ku caabudno. waxa sababtoo ilaahay wuxuu naga dhigay dad islaam ah la ilaaha illa allah muhammad rasuulullah dhahay. maadaama sida ay tahay gaaladu kaniisada way dayactirtaan inaan dayactirno masjidka ilaahay subhanahu wa ta'ala oo nasiiyay oo gurigiisana ahaa. yaa kale maanta aradan joogo ii sheegay anako ilaahay nagu uumay aradan anakana wuxuu noo uumay inaan qurxino. walaalayaal hadda meeshaan oo kale sidaan ku eegano dib weyn ayaa naga soo gaarayo ma wanaagsana. walaalayaal hal isku hawar wacdo hal isku aabo wacdo hal isku walaal wacdo meeshaan sidaan loogu bedeli lahay ha lagu fikiro. dunya aakhir way soconaysaa ninkii wax ku darsado masjidkan cid alaale cid la xiriiri kale ha laga la xiriiro ha la dhiso. masjidkan ha la dhiso hadeertaan waa lagu dhex kaadiyaa sidaan hadda kaadi ilmaha hadda ku dhex dawaala way ku dhex kaadihayaan way ku xaarayaan waa guriga ilaah mana qabata taas. anagoo dad islaam ah islaamnimada ma aha qabiil la sheegto waa wax ilaahay kugu beero. walaalayaal wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. sidaas